waa idin salaam dhamaantiin meel kasta dunida ka joogtiin ku soo dhawaada maanta traders cashirkan waa cashirkii koobaad qaybtii labaad ee taxanaheena ahaa barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex-ka maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaalo website-ka caalamiga ee loo yaqaan tradingview.com hadaba waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid waa maxay tradingview tradingview waa website-ka ugu weyn uguna caansan ee isticmaalaan traderska caalamka waana goobta ay ka sameeyaan taxliilinta suuqa mar walba ay galayaan trade hadaba maanta cashirkeena waxaan u kala qaybin doonaa 5 qaybood 5taas qaybood oo kala ah 1 sidaad akoon uga samaysan lahayd website-ka tradingview 2 si aad u nidaamsan lahayd shaashada website-ka 3 lacagaha kala duwan ee lagu trade gareeyay si aad ugu soo darsan lahayd 4 sida la isaga bedelo time frame-ka ku saaran una saaran lahayd time frame kale oo ka duwan 5 iyo si aad u soo dhaweysan lahayd toolska ugu muhiimsan ee maalinle loo isticmaalo ugu horeyntii soo furo Google oo kadibna ku qor tradingview.com kadib shaashad noocan ayaa ka soo horbixi doonta si aad uga samaysato tradingview account waa inaad leedahay Gmail aad taqaanid passwordkiisa kadibna halkaas ay sign in ku qoranta ayaad ku dhufan doontaa qaab noocan oo kala markuu kugu soo baxo meeshaas oo ay sign up ku qoranta ayaad ku sii dhufan doontaa markaad ku dhufatid meeshaas ee Google-ka ay ku qoranta ayaad ka dooran doontaa kadibna halkaas ayaad gelin doontaa Gmail-kaaga kadibna password-ka ayaad gelin doontaa kadib meesha ay ku soo gudbin doonaa waxaad gelin doontaa username-ka aad ku soo gali leed kadibna continue ayaad dhihi doontaa hadda waad leedahay tradingview account dabcan ma aad baahnid waxyaabahan kale oo dhan inaad isku mashquulisid waxaad u baahan tahay qaybtaas ee chart ee ku qoran tahay oo kaliya kadib shaashad noocan oo kale ayaa ku soo bixi doonta si aad u nidaamsatid shaashadaada waa inaad ku dhufataa qaybtaas ay ku qoran tahay settings kadibna aad ka timaadaa status kadibna shantan meel inaad tigta aad ka qaadid waay kadibna aad tiraahdaa okay hadaba hadaa tahay trader oo maalintii oo dhan dul fadhiyo computerkiisa kuma anfacaysa shaashadan cadaanta ah si aad madow uga dhigatid waa inaad tiraahdaa right click kadibna aad ka doorataa color theme kadibna aad ka sii doorataa dark hadaba qaab noocan ay kugu soo bixi doontaa shaashadaada meeshan waxyaabaha kaaga muuqda waxa ay yihiin waa candlestick hadaba setting-ki ayaad ku noqon doontaa kadibna symbol meesha ku qoranta ayaad ka sii dooran doontaa kadibna gaduud buuxa ayaad ka dhigan doontaa meeshan candlada salka gaduud buuxa ayaad ka dhigan doontaa candlada bayga kalarkaas ayaa ka dhigta adigana midka aad jeceshahay ayaad ka dhigan doontaa okay hadaba waa aragtaa shaashadaada qaab noocan ay kugu soo baxday mar walbo aad soo gashid website-ka si ay sidaan kugu ahaato waa inaad template-kan aad save gareysataa waa inaad ku dhufataa meeshaas setting-ka ay ku qoran tahay kadibna hoostaas templates meel ay ku qoran tahay ama template ku dhufatid kadibna aad tiraahdo save as kadib magac gasho ayuu ku leeyahay maanta ayaa ku qortay kadibna save ayaa dhahay kadibna okay ayaa dhahay si aad ugu soo darsato lacagaha kala duwan ee lagu trade gareeyo suuqan waa inaad timaadaa meeshaas ay ku qoran tahay watch list lacagaha hadirtan ku jira waa noocan kadib halkaas ayaa qabanaysaa hoos ayaad u jiidaysaa kadibna waxaad sameynaysaa mid ayaad isaga tiraysaa
okay markaad sida isaga soo tirtid oo meesha ay ku tahay meeshan sida cadaanta ah balaastas ayaad ku dhufanaysaa kadibna meesha search barka ayaad ku qoraysaa lacag walba tusaale euro USD kadibna enter ayaad leedahay kadibna direct meeshaas ay ku soo galaysaa lacag walba hal mar ayaad ku soo darsanaysaa tusaale AUD USD ayaa hadirtaan aad tagaya kadib sidii oo kale meeshii ay ii soo gashay 28 beer ee lagu trade gareeyo suuqana waa kuwaas joojiso muuqaalka oo trading view-ga tago hal xabo ugu soo darso candle walbo meeshan ka muuqda wuxuu ka tarjumayaa time frame-ka adiga ku saaran aniga time frame-ka hadda ii saaran waa 15 minute hadii meeshan ay ii saaran tahay macnaheedu waxa ay tahay candle walbo la soo dhaafo meeshan ka muuqda waxa uu socday 15 minutes candle walbo imaan doonana haduu isla time frame-ka ii saaran ii sii saarnaado wuxuu ahaan doonaa 15 minutes wixii ka badan candle cusub ayaa bilaaban doona si aad marka isaga bedeshid time frame-ka ku saaran una saaratid time frame kale oo ka duwan waa inaad ku dhufataa halkaas isla time frame-ka aadna doorataa time frame kale oo ka duwan waxaad dooran kartaa 4 hour-ka waxaana dooran kartaa 1 hour-ka ana hadda waxaan doortay 4 hour-ka waa aragtaa time frame walba waxa uu ku jiraa meeshan waad ku dhufanaysaa time frame-ka aad u baahan tahay in uu mar walba aad 1 click le inta halkaas aad ku dhufatid aad ka soo dooran lahayd meeshan si aad meeshaas 4 hour ay ku qoranto kale ayagana ay meesha kugu soo saftaan waad ku dhufanaysaa kadibna waxaad saaranaysaa starters ani hadirtaan 4 hour-ka star ayaa saartay 1 hour-kana star ayaa saartay 30 minute-kana star ayaa saarana 15 minutes-kana star ayaa saarana ma ana saaran sugaan saartay xidigtas ayaa saarana marka si aad meesha uga jeedid 4 hour hadaa raba halkaas le ayaan ku dhufanayaa 1 hour hadaa rabana sidaas oo kale ayaa halkaas ayaa ku dhufanayaa waxaan rajaynayaa inaad ila fahamtay time frame-ka iyo sida aad isaga bedeli lahayd aynu usoo gudubna toolska sida joogtada oo qofka traderka ugu baahan yahay iyo sida uu soo dhaweysan lahaa toolska aad sida joogtada ugu baahan tahay waxa koow ka ah tagastigaas waa inaad soo saarataa xidigtaas halkaas ay ku soo karto waa aragtaa meesha rabta ayaa geysan kartaa calaamadan long position-ka iyo calaamadan kaleeto ah short position-ka xidig ayaa labadoodana soo saaranaysaa waxa kaleeto ku sii xiga price range-ka soo select gareyso waxa kaleeto mar walba u baahan doontaa aan ku kala fahansiiyay marka calaamadaas tiiga ama tagasti meesha ay ku qoran tahay waxay ka saacideynaysaa mar walba ay cilad ku haysato ama dhibaato ku haysato inaad tiraahdo halkaas ayaan fahmi waayay aad ugu soo qortid qofkii kadib si uu ku caawiyo mid kaleeto oo ah calaamadan long position-kana waa markii trade u gal rabtay tusaale trade-kan ayaa rabtay inaad ka faa'iideysid buy-ga buy-gaas trade-ka marka u gal rabtid waa wixii aad ku calaamadeysan lahayd trade-kaas inaad buy u gashid waad aragtaa stop loss-kaaga intuu yahay take profit-kaagana intuu yahay ay ku kala sheegaysaa ayaadna ku xisaabsanaysaa numbers ay leedahay short position-kana waa taa cagsigeeda oo trade-ki aad sal u gali lahayd ayaad sidaas oo kale aad ku soo leedahay kadibna waxaad sameynaysaa stop loss-kaaga intuu bib uu yahay intaas oo kale aad si xisaabinay midaan kale to saddexaad waa wixii aad ku xisaabin lahayd bibiska tusaale kanalkaas inaad bibiskiisa xisaabida ayaad u baahan tahay waa uu ku soo sheegayaa bibiska ayaa lagu xisaabiyaa markii aad rabtid only candle ma aha waxa ku xisaabin kartaa trade-kan intee bib ay u dhaqaaqo kale marka aad lagu yiraahdo waa inaad ku soo xisaabsan kartid 94 bib ay u dhaqaaqay ma fahanti waxa kale tood si joogta u isticmaali doontaa calaamadan kaamirada kaamiradas waa mar walba
oo aad rabtid inaad sawir meel ka dhigatid ama sawir aad ka save gareysatid shaashadaada ayay ku saacideynaysaa ama mar walba rabtid inaad qof u dirtid copy ayaa leedahay kadibna linkigaas ayaa u diray markuu linkigaas ku soo dhufto qof kale sawirkan oo kale ayaa u soo bixi doona waxaan rajeynayaa cashirka inaad wax uun aad ka faa'iiday waxaa inoo balama cashirkan cashirka xiga sidaa iyo nabadgelyo